tababarkuna ah mid ay soo qaban qaabisay safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi oo hormuud ka yahay si hayaa safaaradda Soomaaliya ana qunsulka guud ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya Ali Maxamed Sheekh Ali Begedi ayaa mid loo qabtay wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Nairobi ka soo socday hal maalin kuna saabsanaan saxaafadda iyo si wariyaashu kor ugu qaadi lahaayeen shaqada ay u hayaan bulshadooda Soomaaliyeed waxaana bixinaya aqoon-yahanno ay ka mid ahaayeen Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid Muxyidiin Axmed Rooble kulankan oo ka qabsoomay gudaha safaaradda Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay si hayaa safaaradda Soomaaliya ahna qunsulka guud ee safaaradda Ali Maxamed Sheekh Ali Begedi wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Iidaan Yoonis iyo aqoon-yahanno kale Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid aqoon-yahan Muxyidiin Axmed Rooble iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Iidaan Yoonis ayaa wariyaasha tababarka qaadanayay kula dardaarmay inay u adeegaan bulshadooda iyo sida ay uga fogaan lahaayeen wararka been abuurka waxaan rabaa casharadii maanta inta ka baxay ee Soomaalida ee jaanibta kale ay bixiyeen doodii xalaash ahayd ee aan sameynay iyo gunaanadka dardaaranka ee wasiirka iyo safiirka ka maqli doono inay noqoto dhaxalgal qaybna ay ka noqoto dhaxalka ay reebi doontaan Ilaahay idinkiisa guud ahaan warbaahinta Soomaaliyeed ee dalkan Kenya waxaan rajaynayaa inay maaragtay ay wax badan ka bedeli doonaan marka ay dalka ku laabtaan oo ay maaragtay ay u noqon doonaan hormuud saxaafadda kale Soomaaliyeed waxaanu taabanay maxaa la yiraahdaa dhaqan cusub oo warbaahinta dunida oo dhan aad ugu dhexfiday oo ah maxaa la yiraahdaa waxyaabaha la yiraahdo fake news-ka oo aynu taabanay hadda saameynta uu ku yeeshay Soomaalida safaaradda Soomaaliya iyo guud ahaan dowladda Soomaaliya waxay ku howlan tahay sidii loo xoojin lahaa ama loo horumarin lahaa aqoonta iyo waliba xirfadda ay leeyihiin wariyaasha Soomaaliyeed si hayaa safaaradda Soomaaliya Ali Maxamed Sheekh Ali Begedi oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa wariyaasha ku booriyay inay ka wada shaqeeyaan danta bulshada Soomaaliyeed muhiimadda waa in kor loo qaado wacyiga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee halkan fadhigoodu yahay Kenya fursado badan oo kale ayaa iman doona ilaa 7 socon doona hadii Ilaahay yiraahdo waxaad la socotaan maanta heerka horumarineed ee ay saxaafadda adduunka ku talaabsatay waxaa naga go'an ka safaarad ahaan inaan la jaan qaadno ugana faa'iideysano inaan annaga iyo saxaafadda Soomaalida si hoose u wada shaqeyno waxa aan diyaar u nahay inaan sameeyno iskaashi hoose si loogu wada qaadimo qaranka Soomaaliyeed Cabdirashiid Absiye on Cable TV Nairobi